shirkadaha caalamiga ah ee Dahabshiil iyo Istanbul Bay ayaa ku dhawaaqay iskaashi muhiim ah oo lagu xoojinayo adeegyada maaliyadeed ee casriga ah iyaga oo xarun cusub ka furtay magaalada Istanbul gaar ahaan degmada Askray ee suuqa Maxamed Alfaad talabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ballaarinta adeegyada Dahabshiil ee suuqyada waaweyn ee caalamka munaasabadda furitaanka xafiiska cusub waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka kala socday labada shirkadood mas'uuliyiintu waxa ay ka hadleen muhiimadda xafiiskan cusub iyo iskaashiga ay wada galeen labada shirkadood iyaga oo muujiyay in ay ka dhigan tahay talaba istiraatiiji ah oo kor u qaadaysa adeegyada maaliyadeed ee bulshada الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxa maanta sharaf weyn noo ah inaanu ka daahfurno Dahabshiil money transfer iyo Istanbul Bay xafiis ay wada leeyihiin oo laga furay Istanbul especially waxa laga furay suuqa Aksray la yiraahdo xafiiska waxa loogu talagalay in uu adeego Afrikaanka Soomaalida iyo dhammaanba dadka customer-ka ah ee ku xidhnaa Dahabshiil money transfer runtii SBay horaan ula shaqeyn jiray waxa shirkad caalami ah oo aan weligeed la shaqeyn jiray Istanbul Bay maantana waxaanu garanay inaanu xafiisyada isku darno oo aanu keenno Soomaali u adeegta dadka Afrikaanka iyo dadka kaleba ee horaan noogu ahaa customer-ka waxaanu markaa ogeysiinaynaa dhammaanba customer-kayga jooga Canada jooga Mareykan jooga Afrika Asia Soomaaliya iyo meel kasta ay joogaan customer-kayga waxaan u sheegaynaa inaanu xafiis Soomaali u adeegayso oo aan mar dambe mushkilad uga imanaynin in laga furay magaalada Istanbul suuqa Aksray laga furay. Thank you so much, sir, for this intro. Actually, we are as SBay, we are very glad to announce this, expansion of our partnership with the Dahabshiil. Dahabshiil, one of our partners, and we are very glad to expand this partnership to serve, all the Dahabshiil customers around the globe. Dahabshiil has a huge network, and we are happy to serve the services here in Turkey in our branch for all the services, including sending money from Turkey to the globe through Dahabshiil or receiving the money from Dahabshiil to in SBay channels actually. And we are happy to announce now we establishing new channels for the payment. We have cash payout services in our branch location always here as it's been there, and now we are adding that wallet bank transfers and bank transfers actually. So both these two channels are establishing, and all Dahabshiil customers, they can receive the funds from the Dahabshiil easily, instantly, and in the moment without any hesitation. Apart of that one, we would like to announce transfer for the personal and the business transaction has been established and has been started between SBay and Dahabshiil actually. So our business customer, they can receive their funds in their bank account directly through the Dahabshiil and the SBay services. We are very glad with this collaboration, and we are looking forward to establish it and make it better and more tighter as well. waxaa farxad noo ah in aanu maanta partnershipkii aanu la lahayn iskaashigii aanu la lahayn Istanbul Bay aanu ku darnay adeegyada la yiraahdo walletka macnihiisu waxa weeye ardada gobolada joogta iyagoo meeshooda jooga ayaa wallet loo sameeyaa lacagta Dahabshiil baa laga soo dirayaa halkan ay imanaysaa branch iman maayo Dahab Plus baa laga soo dirayaa calaaduul waxay u tagaysaa walletkii isagoo gurigiisa fadhiya walletkaana waxa ka siin doona Istanbul Bay sidoo kale macaamiisha businesska ah waxay loogu shubi doonaa lacagahooda account macaamiisha kale ee doonaysa in cash service sameeyaan counter ka imanayaan ina Soomaaliya u adeegaya waxaanu siinaynaa adeeg hufan degdeg ah insha Allah taala aad baa u mahadsantahay